واتاي مركا waxaan ka bilaabaynaa hadda basic warehouse inaan ka bilaabaynaa haduu ilaahay idmo okay so R1 aan galeynaa of course kan xaggaan aan geysano kan inta aan dhigano okay way waxa qori doonaa enable markuu ugu horeyso second intaadan hall bilaabin wiliga intaadan hall bilaabin you have to make sure inaad qorto show id interface brief why show id interface brief u dhaheena mostly waxaan quruxda badan hortaada yaalo ma arki doontid device-ka meelaha la saari doonaa dabcan godadkii waxay ku qoran yihiin laakiin mar waliba sidaan clean-ka ma u arki doontid right alright the second option oo command kan uu isticmaalayso waxay tahay in case haddii aad system-kan aadayan qofka bacda ka fiiqay waa inaad ogaataa yaa hore u isticmaalay okay already aniga waxa ognahay in empty uu yahay right so global configuration ka kali doona of course waxa ugu horeeya sameynayna waxay tahay system-kiina magac ka bedelno waa number 1 okay waxyaabaha kale common ka loo baahan yahay maxay tahay inaad sameeydo wax la yiraahdo console password you already know this configuration anaga ma sameynayna maanta okay our target waxay tahay router kan laba interface uu leeyahay G000 iyo G001 godkaan ku hormarayna anaga xisaabteena waxa ka furanaynaa maanta godkaan G001 ka inaan ka hol bilaawno this interface aan hol ka bilaawayna maanta okay this specific interface aan ka hol galayna maanta okay so interface kan waxa og tahay id ina ugu tala galna 10130 laakiin 0 lama siin karo remember subnet markaa soo baranayday lababa waa laga jaraa network broadcast iyo maxaa laga jaraa iyo network laga jaraa right these two waa ka jarayna anagana way waxa sameeynaa marka router keenan galeena xalena interface G0/0/0 who has this id address is the link that goes on R2 xalena enter number 1 waxa sameeynaa don't forget in real life you have to provide descriptions right so xalena waa R1 oo aadaya R2 adig sidaan ma u qoraysaa no faahfaahin dheer la yaaba hadhoodi ujeedka loo isticmaalayo maxay tahay actually aniga hadda raadna waxa isticmaalaa link to R1 data center kan jooga ama internet ka sameeyo everywhere waxa isticmaalaa link to R1 then waxa sameeyaa inaan raacsiiyo ujeedka ama client-ga aan maaragtay link-ga siinaa right so kadibna waxa leenahay id address waxaan sheegnaa 10.1.3.3.1 sida ka muuqato subnet mask-ga waa 255.255.252 where is 252 say ku imaatay remember id /30 24 waxa raacsiinay 25 26 27 28 29 30 you see so subnet-ki marka binary adiga sameey adiga ogaana xaga right maxaan kala sameyn karaa interface kan specifically aan ku sameyn karaa speedkiisa aan jeegarayn karaa sidii kaaga muuqato maxay tahay waa gigabyte doo yahay speed-ka aniga waxaan jeclahay inaan fixed ka dhigo numberka ugu dambeeya aan siiyo to avoid hadhoodii inay dhibaato imaato automatic waxyaabaha kale aan sameyn karta aad u far badan tahay all of this information ay haysataa waxyaabaha aan sameynaa waxa kamid ah hadda aan enable gareynayo this command layer 2 inaan ku soo sharaxay ahayd cdb waa Cisco Discovery Protocol waxa loogu talagalay in device-kan ama board-kan hadhowda xogtiisa si maaragtay nidaam ah u hesho xogta marka laba meel baa ku heli kartaa cdb-ga maxay si local specific this interface kaliya axwaashiis waa heli karnaa okay alright so waxa leenahay cdb kadib waxa leenahay enable macnaheedu maxay tahay halkan board waxa u furay in hadhoodi caqabada ku imaato aan ogaan karo caqabadaas meesha ka imaato and if you can remember it session keena maalinta ugu horeysa aan furaneynay system live ay idin ku tusay muhiimada uu leeyahay cdb iyo LLDB okay ayadan waxa leenahay LLDB kan wuxuu leeyahay marka receive iyo receive hadaa iraado macnaheeda xogta aniga helayo transmit hadaa iraado ana diray qofka kale haduu dhageysanayo sameeynayo right so we leave this way kadib waxa leenahay no shutdown okay
this interface waa daara laakiin ma daarmin green ma noqonin yaa ii sheegi kara reasonku green u noqonin no shutdown waa dhahay waa ujeedaan up waaye laakiin still hay yeah R2 inaa gala asna shutdown soo dhaw no shutdown soo dhaw waaye second link yaa galayna oo ah interface G0/0/1 sidoo kale asna waxaan dhihi doonaa description link to R3 IP address waa 10.1.1.1.1.255 same subnet waa ayaga dhan kadibna waxaan leenahay no shutdown kana sidoo kale waxaa u enable gareynaynaa CDB aa u enable gareynaynaa hadhoodii ogaanaynaa muhiimadda CDB waayo isna waxaan leenahay marka do right then waxaan jeegareynaynaa IP-yadii inaan soo gelinay you see IP-yada soo gelinay manually up waaye laakiin protocol down waaye which means your neighbor's link is down neighborkaada linkigiisu waa dansan yahay waayo how are we going to configure on loopback addresses see loopback loo configure gareyna simple hadda interface-ka markaa galaya waxaa qoraynaa interface G00 soo this time waxaa qoraynaa interface L0 okay maxaa kaloo samayn kartaa interface loopback 0 waa dhammaystiri kartaa loopback ayadoo dhammaystiran waa qori kartaa ama waxaa dhihi kartaa L0 maxaa ku dhex jira hadda interface loopback la yiraahdaa ku dhex jira maxaa u sheegaya marka IP address waxaa leeyahay 1.1.1.1 subnet maskigiisana waxaa ka dhigayaa open okay again waxaa sameynayaa sidii oo kale sameynaa interface loopback 1 asna waxaa siinaynaa 10.1.1.1.2.1 kan kalena waxaa siinaynaa loopback 2 IP-giisana waxaa ka dhigaynaa 10.1.1.3 hay configurationkiisu waa sahlan yahay right just sida interface u galaynaa dabcan then IP address-ka ku shubaynaa waaye let's make sure marka waxaa leenahay hadda do show IP interface brief maxaa arkaynaa hadda loopback iskeena active waaye interfaces-kan interface oo jira ma ahan laakiin software li maxaa sameyn waa enable gareynay maxaa u dhigmaan physical interface u dhigmaan if this interface goes down hadhoodi IP-gan aa kusoo access gareynayday ma soo geli karta systemkaada as long as uu systemkan down yahay laakiin maxaa awooda inaan soo isticmaalo hadhoodi loopback waaye router 1 waa ka dhamaanay router 2 aan galaynaa marka router 2 maxaa ognahay inuu router 1 aadayo oo ka aadayo G001 oo qaadanayo 10.1.3.2 let's do that waxaan config terminal hostname R2 okay interface G0/0/0 11 description link to R1 you see IP address was 10.1.3.2 255.255.255.252 hadda fiiri markaa no shutdown oo linkiga wuxuu noqonayaa already green oo noqonaya you see that again waxaan sameynaynaa interface G01 R2 R3 communication kula sameynaa xaleena interface G0/0/1 description xaleena link to R3 IP address waxaan siinaynaa 10.1.2.1 255.255.255.252 isla xaleena no shutdown remember inaa ka tagi speed it's okay laakiin do you know what this interface waxaa kasoo dhignaa 1000 aa kasoo dhignaa and this interface automatic wuxuu noqonayaa 1000 oo noqonaya let me show you kana daan no shutdown haddii aan show interface G0/0/0 inter markaa dhaw fiiri automatic qaybta speedka la fiiriya our speedka where is speed ma u jeedi speed ma arkosin yes full duplex ma arkaysaa 1000 why 1000 u noqday ani 1000 ma gelinine yaa ii sheegi kar sababtoo intuu 1000 u noqday yeah remember aniga goodkan oo R1 le aan 1000 ka soo dhigay kana waa 1000 ay open yeah why automatic ka dhigay 100 inuu ahaado ma ahna sababta u suura gelinaysa maxay tahay inuu noqdo 1000 موجودة ماشي معاكو قران لينك كتاب معاكو قران yes
auto hadduu yahay it means wuxuu maalgareynayaa awoodda kan kale uu leeyahay. Let me go R1 hadda. R1 aan galeynaa. waxaa leenahay show interface G0/0/0. alright, maxaa u jeednaa inta 1000, laakiin ana waxaan kasoo dhigay manual aan kasoo dhigay meeshaan must change. okay, waa tahay. so hadda waxaa aadaynaa marka R3 aadaynaa basic configuration aan ku jirnaa. remember waxaa leenahay enable config terminal host name R3 we can do that, laakiin muhiim ma ahan. hal link discovery badanaa waxaa la sameeyaa keliya markaa troubleshooting rabta inaad sameydo bisa la isticmaalaa. okay, troubleshootingkaas laakiin hal lug keliya maya reasonka u furaay maxay tahay? waxaa rabaa lugta kale uu ku xiran yahayna inaad ogaado caqabada ka haysato, dhibaatadeeda, full information inaad ka helo. okay, for example let me show you something in real life. baa idin tusayaa. okay, so hadda inta yiraahdo fiiri show aniga hadda Juniper isticmaalo LEDB isticmaala show LEDB statistics hadda iraahdo in general LEDB ga intaanu boorto u enable gareysan yahay. hadda iraahdo show interface for example G1 for maxay ahayd? sorry, command key iloway. command key iloway. I will remember it later. okay, okay, show LLDB marka iraado yes enable yes interface. okay, then G018 mu enable gareysnayno meeshaan hadda marka arkaynay. yeah, let me try it for yes had for oo kale enable ugu dhigay. okay, information dheeraada ku jiro I'm not going to explain it here, laakiin waxa arkaya diriskeygan wuxuu wato iyo magacaana aan wato. diriskeyga magacuu wato ana magacaa wato, then waxa ogaan karaa markaas meesha caqabada ka jirto. right, in systemkeena live ka ku practice ka ku sameynayna. okay, hal mar aan ku laabto R1 ka R2 baan dhaho interface G0/0/0 CDB enable. CDB ga laba meel laga enable gareeyaa. specific port waa laga enable gareeyaa, global configuration kan waa laga enable gareeyaa. hadhow imtixaanku ku imaan doontaa. imtixaanku waxa ku imaan doona CDB run aa la yiraahdaa. markii globalka aad joogtid maxaa waaye globally enable CDB run on the entire system waa maxaa waaye dhammaan u enable gareeyaa. laakiin haddii la qoro CDB enable maxaa waaye specific interface u enable gareeyaa. فاهمين هذا الكاس 1,000,000% امتحانك waa ku arki doontaan. I'm sure in imtixaanka idin soo galayso randomly way imaanayaan. عبد الناصر ku jira glass. عبد الناصر waxaan ku aragtay imtixaanka. waa for sure waa imaanaysaaba. alright, CDB enable hadda aragtay yeah maxaa ku imaatay? of course you see that. so CDB enable waa specific interface bisa rabtaa inaa enable gareeyo. CDB rana maxaa waaye globally enable waaya globally enable. okay, calaamada isticmaala community waa ogaad way good. hadda systemkan asiga dhan oo ogolaada. hadda fiir markaa iraado for example show CDB neighbor interface Cisco maxay isticmaashaa neighbor detail. انت maxaa ku arkay? let me show you show IP interface brief. ani IP geyga maxaa waaye interface kan IP giis maxaa waaye 10.1.3.1 waa soo ma. so waxaa leenahay show CDB interface gigabyte is 0/0/0. maxaa soo baxaayo
in detail ka ku fiirinayna marka detail ka ku fiirinayna kan miiso saaray waayo laakiin igu soo saaray waa G000 hadhuda troubleshooting ka sameynayna waxa hadhuda yar inaan sameeyo laakiin hadda for the concept inaad aragtaan muhiim waa okay so detail marka iraada fiiri inta maxaa ku qoran iyo akhriyo meeshaas ba guys أنا أنت جوجا واي أنت router 1 يوصل بحده yes because link gas يعني communication أنا قاعد أحير you see that ما حاكله even أوغانيسا router كاس version كيسة أوغانيسا operation system كيسة every single bit of that interface أوغانيسا yeah capability كيسة أوغانيسا okay platform كو استعماله okay أوديه نوع وياه router إنه وياه switch إنه وياه okay version ku jiro operation system waxaan u yeeraa laakiin ay idin tuso anyway let me go in an other system kega and thank you qofkii soo remind gareeyay so waxaan galeynaa interface G000 xaleena no shutdown okay description ku iska dhaafaya IP address waxaan siinayaa 10.1.2.2.255.255.255.252 waxa ka dhiganaa no shutdown of course again waxaan galeynaa G0/0/1 oo ah linkiga R2 iyo R1 isku xiraayo waxa leenahay description link to R2 then waxaan siinaynaa IP address oo 10.1.1.2.255.255.252 then waxaan leenahay no shutdown asaxta iskaaga enable garay CDB enable okay way maxaa sameeynaa marka hadda maxaa sameeynaa waxaan sameeynaa basic configuration hadda waxaan sameeynaa OSPF configuration sameeynaa systemkeena hadda back tracerka marka aan joogno hello bucket kama capture ku sameyn karo laakiin wada kala u mareyna way inta waxa ku qoray hadda marka show IP interface brief waxa arkaya IP yadeeda sidoo kale waxa arkaya routing table kayga arkaya show IP route this is my routing table laba trick ba waa idin tusaya marka aan rabo in aad advertise gareeyo OSPF ku waxaan ku advertise gareyn karnaa commonly general OSPF inaan adeegsano router OSPF kadibna aan u sheegno ama interface basic OSPF labadaba waa sameeynaa laakiin kan generalka ku hormarina markii aan sameeynayna dynamic routing protocol waxa ugu horeeya isweydiinayay waxay tahay brother hoosh aan qabanayo maxay tahay waxaan rabaa router 1 inuu communication la sameeyo 3 iyo 2 inuu communication la sameyn karo right 3 iyo 2 inuu communication la sameyn karo way 3 iyo 2 si communication uu sameeyo IP-da oo ka maqan ma baraya mise specifically waxaan baraya halmar okay mise waxaan barayaa wuxuu asi u yaqaan dynamic marka joogno routerka wuxuu asi yaqaan barayna router 1 hadda meeqa IP address uu yaqaan ay sheegi karo home network soo router 1 yaqaan meesha sa lagu laabto R1 meeqa network uu yaqaan hay E3 yeah wuxuu yaqaan 1 2 3 4 5 IPs oo yaqaan maano those 5 IPs oo sheegayna say u sheegayna marka global yaadayna global configuration ka aadayna qishka isticmaalayna inta arag anaga IP-yada soo gelinay inta maxaa ku arkoona hadaa xasuusataan routing-ka markii aan sharaxeynay siiga maxay directly connected IP version 4 wuxuu isticmaalaa wax loo yaqaan dented maxaa waa IP-ga markii aad gelisid for example aniga waxa soo gelinay 10.1.1.1 aan soo gelinay /32 anaga ma soo gelin /30 aan soo gelin /32 muxuu furayaa wuxuu leeyahay waa agile waa local interface ku jira kanna waa IP-ga adiga aad isticmaasho subnetted ka kan ka koreeyna waa original IP-ga meesha asalkiisa ka yimaada waa parent sama godadka ku xiran yihiin inta ka arkayna marka anaga dynamic aan joogno waxa isticmaalayna IP-yadana isticmaalayna oo seed ay ku qoran tahay homani si yahaysana intaanu si yahaysana meesha anaga aan ka gali lahayn mid kasto 1 2 3 ajam u gali lahayn waxa adeegsanaynaa
parentigooda adeegsanayna. You see inta territory haysta way waxaan galeynaa global configuration-ka waxaa qoraynaa router OSPF 1 markaan rabo inaan enable gareeyo OSPF-ka waxaan adeegsanaynaa command la yiraahdo router kadibna waxaan adeegsanaynaa protocol-ka kadibna waxaan adeegsanaynaa autonomous system. Remember here maxaa yiri waxaan adeegsanaynaa bilowga hore haddii aan chapter previous ku noqono OSPF-ka wuxuu adeegsadaa autonomous system oo adeegsadaa autonomous system maxay tahay waxaan network oo arkeeno waxaanu ID aan arkeeno markaan rabo qof inaan u diro wuu ku wareerayaa marka hadhow waxa xambaari doono this autonomous system waxa xambaarayo. Alright way autonomous system ka markaan u sheego maxaa sameynaya waxaan barayaa numberkana waxaan barayaa how many networks aan leeyahay waxaan qorayaa dhexdiisa network aan ku qorayaa kadibna maxaa sheegaya networks-ka aan leeyahay oo ah 10.0.1.1.0 meeshaan waxaan ugu soo kordhays wax loo yaqaan wildcard bits. Wildcard bits maxaa waaye wildcard bits waxaa laga wadaa wait waxaan rabaa one node aan rabaa hadday cilad i haysatay oo spanning tree ah spanning tree hadday qabsaday ma session keenina waxa in badan ka soo sheekeena maano spanning tree ay qabsaday cilad ah ciladii marka inta aan figure gareenay intuu ka jira loop kan intuu ka jira okay mida maanta waxa laga qaadanayay bridge ka laga qaadanay qof kale loo wareejinaya problem kan waxa ku xaliyay fiber issue ay haystay I will show it to you later and saan ku xaliyay marka let me show you inta anaga maxaa naqaana ay subnet mask-gana adeegsanaa daayimaano okay subnet mask-gana hadii aan adeegsanay oo arabna wildcard inaan helno waxaan ka jaraynaa meel kasta maxaan ka jaraynaa 255 ka jaraynaa okay 255 minus 255 minus 7 maxaa noqonaya marka meesha equal maxaa noqonaya 255 كجر محاوي إيش هي 0 واي مانو again 255 كجر و 0 right again عندنا 255 كجر و 0 هدي أنكل جرنو هدي هي 255 أنكل جرنو 252 حنوصل بحاي 3 نوصل بحاي ماركة وايل كارد كنا مركز محنو قنايا 3 ونقنايا ينفع من انت OSPF كمركي الجوجو waxaa isticmaalnaa wildcard bits maxaa waaye waa subnetkii oo in reverse la daba gidiyay okay way inta marka maxaa ku qoraynaa 0.0.0.3 alena space oo baxana remember OSPF inuu isticmaalo wax loo yaqaano terminologies maxaa kamid ah area maxaa waa logical grouping okay network-gan aan tilmaamayo oo tanka ah area-du iga imaanaa anaga hadda backbone area isticmaalana default inta marka waxa ku qoraynaa area 0 qorayna kadib waxa leenahay enter hadda OSPF autonomous system waxa uu sheegay network koowaad uu sheegay again waxa uu sheegaya network labaad uu sheegaya oo ah 3 kan la edit gareynaya same way because 3/30 wata 1/30 wata right enter alena maxaa kale uu sheegaya subnet kana uu sheegaya 1 ka ah okay meeshan wax yaraan bedelaya because ani haday 255 iska wada isticmaala maano hadii aadan rabin ina specific la sheegto wildcard bits ka maxaa sameeyay waxa leedahay 1.1.1.0 kadibna waxaan sheegayaa 000 wala kadibna waxa leeyahay area 0 alright gadaal damba faahfaahin idin kaaga siinaya laakiin hadii aadan rabin specific ina cadeyso sidaan aan sheegana fiiri marka aniga 1.1.1.0 waa adeegsaday dhamaantood intay ka wada faracmaan كان كودا فرع معايا سيدو كلام محلية 2 كان كدقايا سيدو كلام 3 أو شيء جايا روتر كان وكذا ما له حلايا رايت هادو إذا مركان ربو روتر 2 مركان قالوا يا روتر 2 مركان قالوا أوز بيفوسو شيء وحدا عاي بروسيس كادين شيء relationship كان لكن سي أو قالوا روتر كان ديباجنا كسمينا كمان كان اللي قاعد ديباج محاولة استعماله على بحنا على استعماله حاليا ديباج IP OSPF adjacent you know adjacent سمحوها neighbor relationship markii la sameeyo neighbor kaas fully hadoo noqdo maxaa dhacayo adjacent yaa dhacaya okay
ribooda aan ii imaanay because ana hadda in Wireshark aan kicimid intusi kara laakiin bedelkeeda kana on ka dhigaya on marka ka dhiga hadhow inta information badan ay soo baxaya LSA iyo wixii dhan soo baxaya way router 2 aan galeena ogaada xaleena show IP router 2 muxuu yaqaan asna laba network uu yaqaan CC maxaa waay laba network uu yaqaan way xaleena config router OSPF 1 process ID ga maxaa waay kala shirkadaanahay waa 1 okay xaleena network 10.1.2.0 0.0.0.2.3 area waxaan ka dhiganaa 0 sidoo kale waxaan u sheegaynaa network 3 marka u sheega fiiri wax yar kadib update ay imaanay okay waa sugeena hadii update ko yes oo imaado update maxaa waad fiiri maxaa inta noo soo baxay daqiiqada markii la marayay OSPF adjacency change ya dhacay ADJ change maxaa waay relationship from Grassman ma xasuusnaan inta neighborka markii ay fully relationship sameeyaan establish gareeyaan maxay isku bedelayaan adjacency maxaa waay waa fully established relationship hadda kana dhacay okay inta ka dhacay ayadoo la isticmaalay process ID 1 neighbor waxa leenahay 31113 hadda ani waxa ka tabaada router ID aan ka tagay hadda inta maxaa ku qoran loading aan ku qoran loading maxaa waay loading processor sameeynaya let me go in and aado qaybtan loading maxaa waay loading waxa laga wadaa router request and receive any missing LSA router kan macnaheedu loading markuu ku dhahooyo wuxuu advertisement ka helayaa routerka kale oo arkayna debug arkayna loading markuu dhameeyo muxuu isku bedelay full maxaa waay it means full hadoo noqdo these two routers maxay isku adeegsanayaan link state database isku adeegsanayaan okay database isku adeegsanayaan hadii gadaal ka jeegareynayna hadda waxa aadaya router 2 aadaya router 1 aadaya router remember inaan ka furo debug waxaan tirada badan arkaysin waa debug waay cilad bixin loo isticmaala inta waxa ku qoran fiiri daqiiqada markii la marayay OSPF la helay database description oh my god man remember database description maxay idin soo sheegay labada router intaynan hortoore ma aragtay xog isweydaarsanin midba mid kale wuxuu la wadaagi doonaa description ka dhan oo la wadaagi doonaa right database description ka dhan oo la wadaagi doonaa I don't remember meesha aan ku soo sheegay this is request yes waa kana database description DBD maxaa lagu siinaa relationship ka markii la establish gareeyo inta loading la marayo waxa la isweydaarsanaya dhammaan xogaha la haayo xogaha dhan ahee la isweydaarsanaa you see inta maxaa dhacay marka inta laga helayaa meeshana laga helayaa inta kale laga helayaa xogta soo gudbinayo database inta ku imaana remember 10132 yaala 10132 nikana le soo 10132 you see inta marka full information ka helaysa flags wax kale laga wado waa reference number this is sequence number maxaa kale cajiiba oo aan rabo meelaan negotiation dhacay you see they are negotiating maxay ku negotiation garanaa hay ya master noqonaya slave noqonaya maxaa laga wadaa DR ya noqonayo BDR ya noqonayo you see we are the slave inta ya soo we are the slave this guy wuxuu leeyahay aniga slave ahay you see yani aniga BDR noqonayo inta fiir maxaa dhacay election dhacaya election maxaa waay DR BDR la elect garana election inta ka dhacaya gigba 0000 ka kacaya يعني قد كانوا كنعايا election key alright انت محل دورت فيري دقيقه markii la marayay BDR loo doortay yaa loo doortay 132 BDR loo doortay ya sababta loogu doortay idinka idin kara waano idin la wadaagaya maxaa kale oo la doortay designated la doortay DR designated router la doortay hatta inta joogno sababta IB gan yaa leh R2 wala ma hano R2 عليه مفهموا سيدنا ليرو عدا يفهمين هذا أي شيء IB كان ياله 10132 ياله R1 عليه R1 محله دورته
BDR loo doorto maxaa loo doortay BDR si u jeegreynayna waxa leena show ID OSPF neighbor R2 before our neighbor did show IP interface briefly 10 1 3 2 inta maxaa ku soo aragnay marka inta joognay maxaa soo aragnay election ka router ka ID gan wato 10 1 3 2 in loo doortay backup designated router reason ka ana gaar in kaaga sheegay let me go hadii aan rabo inaan xaqiijiyo aniga ahay BDR waxa leeyahay show IP OSPF neighbor intra leeyahay okay neighbor marka enter dhaho inta maxaa arkaya diriskeyga ID giisa arkaya ana ID geyga muxuu ahaa ID geyga wuxuu ahaa 10 1 3 2 diriskeyga ID giisa waa kana maxaana loo doortay full DR loo doortay full DR designated router loo doortay inta maxaa kugu cad qofka ID gan wato 1131 in loo doortay DR in loo doortay okay okay inta maxaa lagu xusay qofka DR ka ID giisa qofka BDR ka ID giisa wariya ay fahmin inta qofka aan fahmin hadda gacanta taag بليز وهل كرتا قرار ما سكرتين اوكي واي sababta uu boobsiinayo hadalka hadii aan boobsiinayo raali aada configuration ka basically wixii basic configuration waa boobsiinaya laakiin wixii hoosha ah gacanta ku qadanaya insha Allah reference muuqaalka inii ahaanay laakiin muhiimadda waxay tahay why router 2 looga dhigay BDR hadda router 1 hadii aan aado let me go router 1 hadaa aado oo aan ku qoro show IP OSPF neighbor hadaa ku qoro inta maxaa arkaya 10 1 3 2 oo ah router 1 ina u naqaan inuu yahay BDR inuu yahay backup designated router election process ku soo dhici jira marka election process ku muxuu ahaa let me go here election process ku marka sameeynayna muxuu ahaa number 1 maxaa jeegreynayna router ID jeegreynayna okay router ID jeegreynayna okay router ID jeegreynayna anaga hadda sida nooga muuqato system iskeena OSPF marka sameeynayna router ID uma sameeynin right way router ID ga maxaa ka jeegreynayna inuu yahay the lowest the best okay second election ka markii la dooranayo DR BDR maxaa aha hadii la waayo router ID hadii la waayo ama ba ay ka noqdaan same maxaa loo baahan second option who has the highest IP address all right who has the highest IP address hadii la waayo maxaa dhacaya who has loop back IP address anaga marka saddexdan ku dabaqeena number 1 wax router ID ma sameeyay router ID ma sameeyay anaga yes no ma sameeyay okay macnaheeda router ID hadana sameeyay maxaa loo soo gudbayaa the second level soma okay second level fiiri router 2 waxa ku jiro 10 1 3 2 ah ku jiro router 2 عفوا 1 waxa ku jiro 10 1 3 1 who has the lowest highest IP address router 2 ah sama so election kenya waa marka router 2 inuu noqdo ah sama
router 2 maxaa rabnaa inuu noqdo DR inuu noqdo rabna mahano router 2 meeshan maxaa arkaynaa marka fiiri waxaa arkaynaa router 2 inuu noqdo BDR why router 2 BDR uu noqdo why was weydiinayna mahano markii ay noqoto second option mar waliba optionka loopback muxuu yahay fast optionka loopback muxuu yahay fast interface kaada loopback haduu ku jiro lama fiirinayo who has the highest IP address markii loopback la waayo ama waxa la fiirinaa highest IP address in our diagram R1 muxuu leeyahay router ID uu leeyahay soma yaani loopback uu leeyahay soma loopback uu leeyahay inta maxaa ku xusan marka loopback geena godku ugu sareeya ama numberka ugu weyn xulanay oo ah 1131 oo meesha noo taal 1131 election process keena markay ku guuleystay R1 ku guuleystay mila fahanteen process ku fahanteen yes confirmation araba acknowledgement aad ay muhiim u tahay so hadii lacala loopback oo jiri lahayn R2 muxuu noqon lahaa DR noqon lahaa soo ma okay so engineer hadii aad tihiin engineerada mustaqbalka waa batiine processkan hadda aan sameeynay oo debugging ka ah maxaa ku ogaanay full information ku ogaanay processka election ka soo dhacay maano hawshaada marka dhameysato oo aad ogaato wax kastoo la sidee yihiin waa inaad debug iska xirto xaleena no debug IPOSBF adjacents kadib xaleena enter maxaa noo soo galay off hadii kale maxaa dhacayo CPU gaada looda korayo culays soo noqona computerkaada routerkaada okay the first process waa gudubnay hadda waxa uu gudbinaa hadana router 2 uu gudbinaa weli checking waan loo dhiman yahay hadda maxaa ku guuleysanay inaan ogaano waxaan ku guuleysan inaan ogaano right now waxaan ku guuleysanay yes BDR iyo LSA gana waa ku guuleysanay remember LSA la xaqirin BDR kaas maxaa ku guuleysan inaan aragno LSDB ama maxay ahayd DBD maano database description ayaan aragnay yeah database description let me go R1 meesha uu sareysana gay okay marka kuwaad maxaa la diray oh my god don't forget this init maxaa idinku sheegay markii aadaan init maxaa idinku sheegay fiir meesha waxa ku qoran init maxaa idinku sheegay marka ugu horeyso state kaada aad initial gareeneedo heleedo frinta hello communication lagu sameeyo maahan hello daada koowaad waxa loo yaqaan initialization loo yaqaan initialization okay initialization kaas markii la isla wadaagayo maxaa la isku dirooyaa DBD la isku dirooyaa database description la isku dirooyaa database description marka ka soo gudubno negotiation ay sameynayaan xoogay isweydaarsanayaan then election dhacayo who is going to be the leader who is going to be the king then waxa la imaanaya exchange dhacayo exchange ga maxaa waaye we are ready to exchange our databases then waxa dhacayo in process kaada uu noqdo state kiisa full hadoo noqdo macnaheedu maxay tahay neighbor relationship kaas established inta maxaa ku socda marka LSA meeshan fiiri build a router LSA for area 0 router ID 13 okay maanta oo dhan LSA gaana soconaya waa yahay so R3 hadda marka configuration ku sameeynaa process ki amarayna xaleenahay show IP route mar waliba adiga dynamic marka joogtid routing table kaada wixii uu yaqaan bis abareeda laba xab uu yaqaan global configuration ka galena xaleenahay router OSPF 1 okay then waxa uu sheegaynaa network 10.1.1.0 wildcard kiisa 0.0.0.3 areas waxaan ka dhigaynaa 0 what is going to happen hada areas 1 ka dhigo hadhoodi area mismatch ku imaanay sababtoo ah 10.1.1 markaan joogay oo qaybtan R1 communication kala sameeyna Soomaa R1 markaan joogay let me go ina meeshan ku qoro show IP protocols
marka aad tid inaad debugging ku sameyso configuration kaad waxa la qoraa show ib protocols waxa leenahay enter maxaa arkaya ib ga 10.11 muxuu sheegay ma 10.11 yeah 10.11.0 good kan muxuu sheegay ma haday OSPF markaa sameynayni yes here it is waa kana cafwan kuwan waa dadka aan negotiation kala sameeyo aan network ka kale so inta maxaa ku qoran fiiri area 0 waa ku qoran for that reason marka adiga R3 aad joogtid wax ku soo baxaya mala inta maxaa ku qoran fiiri meesha maxaa ku qoran inaan hakiyo waay let me just take this information copy intana can حاجة نوغو شو حارة information كان سي كليرة انا اقول عرقتان انت محاكو قروا فير OSPF received ولا هلا لكن محاواي و invalid bucket محاواي hello قال وادومي انت محاكو صباحاي mismatch area ID انا I remember مركي update green CCNA ده اللي اي صباحاي mismatch area ID لكن I don't remember exactly لا كسيدو أها. Okay. أنت محاكو قرا مركا. mismatch ID كان أنتو كسعدا. virtual link كا استعمال edit أو link كا communication كله سمينا 10.11.12. Okay. link كا أنا استعماله communication كله سمينا edit ذان كله. network جيس محاواي. بعد network جيس وحلو قلويا mismatch كجرو. maxaa ku xalinayna simple solution maxay tahay in area aan ka dhigno 0 hadda area marka ka dhigno 0 maxaa dhacay OSPF kaada area change inta waxa ku qorma area change haday dhacdo maxaa sugaya let me go R1 again R1 aadina xaleenahay way iga soo hormaray debug arbena ku qoro R1 هذا محور هلا information وهلا انتو كاله 10.1.2.2 يوها R2 يوها loading keys محور نقضي full نقضي هذا R3 مركا آدنو R3 أصيغنا full أو سوقر ناس loading full done من جدا كيور واسكا ترترينا مركا كيور مركا ترترينا محا انت بقول مفيري down محا كسو براني area مركا system كي down مكو يا محا تاي no more hello دمبا مدريسيت مانو لغو سو دراي maxaa kale inta ku arkayna detached maxaa waay waa ka saartay waay neighbor ka marka hada down because we don't have that neighbor wait maxaa kale u sheegayna do show ib route hadda maxaa u sheegna 10.11.11 u sheegna maano waxa u sheegna again 10.12 u sheegna 10.12 area diisna waxa ka dhigayna 0 okay abaar kadibna full aan soo baxayso asaxta aan dhaho wait waxa rabaa router OSPF 1 network hadda u sheegay waa ka saara sababta ugu saara ay sheegaa waxa rabaa R2 inaad debug ka dhigo R2 waxa ka dhigayna debug enable ugu dhigayna xaleenahay debug ib OSPF adjacent asigana DRE VDR ma loo dooranaya every topology there would be one DR and one BDR the rest wax loo dooranaya mala okay information kaas hadda enable ka dhigay because diris la ahaymaano diris hadda la every information oo sameeynaya waa la soo diraya okay hadda marka u saaraya network u sheegay network hadda full loading oo soo qoray R2 marka tago inta information dheeraad ah helaya debug ay soo baxay okay DR BDR election dhacay waa ware why DR BDR u dhacay waa ogaanayna waa baarayna sababta hal xabal raba in la sameeyo xabadaasna ay ahaada R1 yes go'aan ma qaadan karin because still another network aan noo dhinaa network aan hadda ku soo darnay sababta oo network aan u noqonayo aan fiirinayna inta DR BDR dhacay la yiri okay DR BDR dhacay
and to be honest kan ha ii furnaado R1 na asna waxa u furaya debug u furaya leeyahay debug IB OSBF adjacents had empty waaye R3 mar labaad waxaan ka tirtirayaa network-ga ka tirtirayaa sorry ya guys waa idin waalooya waa ogahay laakiin tartiib idin ku sharaxaya hadda network-ga uu enable gareeyay advertisement ya dhacaya maahano kanna waa loo diraa hadda R1 markaa tag maxaa sugayaa fariimo badan inay soo baxaan what fariimi why fariimo ay soo bixi laayeen backtracer ka problem mu qaba intaana see issue ma laha laakiin kana ka sameeynayna kanada goodkan firi DRBDR election loo sameeyaa liir waa loo codeeyay ay maxaa loo codeeyay OSBF elect BDR 0000 it means we are not going to elect any BDR anymore wait DR anu waxay 10-1-3-2 as already okay election ma dhacay yes receive it DBD kasoo tag inta maxaa ku qoran we are not slave we are not slave it means we are the masters all right inta fiiri marka router kan DR ku soo qaaday BDR kan uu soo qaaday all right inta fiiri EX start maxaa laga wadaa EX start hore ma soo baran EX start yes EX start maxaa waa the router is elect who will start the DBD maxaa waa markii communication la sameynayo qof cusub kugu soo biiraayo adiga oo hore u joog ma dhahayo warheeda aniga xogtaana haystaayo ho mise qofka martida ahaa ku dhahayo warheeda ay aniga waxaana wadaayo soo dhow mar waliba waxa qofka martida ma aragtay initiate gareenayo okay neighbor negotiation dhacay we are the master noqonayo leeyahay right exchange full information dhacay you see I know ina wareeraysan like muuqaalka dib u daawanaysan insha Allah markii muuqaalkaada ku soo wareertaan and dib isku xalinaya debug IBOSBF adjacents aan ka xarno waya so far maxaan baranay hadda waxaan baranay inaan meel soo saarno information key hadda hore waxa soo aragnay init waa soo aragnay aan highlight gareeno ex start waa aragnay exchange waa aragnay load waa aragnay full waa aragnay ogaada hadda xogta idin la wadaagoyo waa xog CCMP lagu barto hadda confuse dareento ardayday dhalinyaroy hal ogaado muhiimada DR iyo BDR ina fahanto process kan hadda confuse ku dareento waa another level CCMP loogu talagalay exchange gaan iyo waxaan iyo debugging ina aragtaan ana hore idin ku balan qaad ina aragtaan right way maxaa kale aragnay down waa aragnay did we see two way ma aragnay wax two way ma aragnay debug inta sameeyeen did we see waxa la yiraahdo two way mismatch waa aragnay qaabka loo xalinayo waa idin tusay on the process wax oo aan ku aragnay ma jirtaa two way now we did not see that in two way goorma shaqeysa bidirectional communication is established when like the routers decide if they need to become fully adjacent ila hadda qof fully adjacent ma jiro laakiin adjacent oo waxa jiro neighbor relationship and that another session oo dhiganayna way hadda waxa jeegreynayna marka R1 marka R2 gudiis marka gal waxa rabaa inaan arko network 10-1-1-0 ina arko internal loopback waxaan filanayaa 1 2 3 4 loopback 4 IP aan filanaya R2 markaan gal way R2 aan galena waxa leenahay show IP root tralena what is going on 10-1-1-1-1 clearly so advertise gareey why you so advertise gareey why loopback being 1.1.1.1 هيا يا إلى حالنا علدا قف إلى حال يا ربع صوت اللي يوصل أدفرتاز جراي واي let me check أنا إذا عاونها لكن
حارة هنا إلى أوجاتان show IP root مركا إرادة you see أنا وحاهلا يا OSPF كو hello OSPF hello يا أو 10 1 2 R1 مركا هاي كليا يا إيجا مقنعني 10 1 2 لا إيجا مقن مانو R3 أنجلنا سنوح عن قرنا مشان show IP root R3 وحكم مقن أصلا 1.3 كم مقن 1.3 out this network كم مقن router كان network كم مقن R1 لو حكم مقن network أنا كم مقن R3 لو حكم مقن R3 كم مقن انت تعرف R2 لو حكم مقن this network كم مقن هاي إيه كأني داني أمريكا sababta oo ligu soo advertise gareeyo way maxaa waay jaanis idin siinaya point okay see u jeeg gareynayna inaan u sheegnay in kale troubleshooting process aan marayna right aan muuqaalka idin boos gareeyo